Bismillahirrahmanirrahim. Marka ugu horeyso horta waxaa weeye dadka xerooyinka laga kala keenay sida market meeshay degan yihiin daraax iyo dharqaweyn iyo meesha la dhuldulo intaas fariisimo ah teeda kale mariidana way degan yihiin laakiin nimanka mariidada dega waxaa la yiraahdaa niman jugta culus loo yaqaano oo sniperka ku hadda shamshuntarka ay u yaqaanaan iyo qoryaha waxyaabahaas isticmaalaan marka hortii adigu xeradan waxa laga soo kaxeeyay dad adigu 13 iyo 10 qof 12 qof meelaha soo kala xerada joogtay waxa looga soo tagay nin iyo waan naag u joogin iyo laba nin oo naag u joogan 3 qof looga soo tagay goortii laga soo baxay waxa la isugu yimid mariidla agteeda gasbal korkeeda meel ah marka meesha isugu nimid gaadan waxa ka yimid adigu dad ugu yaraan 7 ilaa meelaha oo kala 8 qof ah daraax rag baa ka yimid dhululana dad adigu 20 aan ku qiyaaso oo kala ka yimid ma aysan yareen marka nimanka saraakiisha ah oo dadkaas soo aruurinaya waxa kamid ahaa oo hawsha markaas watay nin Cabdiqani la yiraahdo oo madow oo qabiilkiisu yahay Balcad qalada Balcad kale Itoobiya degawa oo ilma absamo way marka ninkaasi yaa hawsha watay barnaamijka oo soo ururta saa qabilsanaa amiiru ahaa hawshaasi waxaa marka tababarka meelaha waxa kala watay Xasan Shaah ma ninka la leeyahay wax bixinta Xasan Shaah iyo waxa watay ninka leeyahay nin oo yar abgaala oo magaciisa la oran jiray Habil Makaa'ilna waa la yiraahdaa labadaas magac uu leeyahay ninkaas nin kale oo Daawud la yiraahdo cashab uu ka bixiyay waa ninka maartay sirdoonka oo meelaha farafaray meel walba gacanta kula jiray way Daawudkuna wuu joogay marka hawlahaas xagga askariyadan waxay dhibay yar oo kamid ah tababaro macallin tababaro jooga xagga dhar baashan gasbal agteeda ma askari u furnaa yaa wuxuu noqday sidii hubka loo riday hubkana waxa ugu weynaa markaas meesha anaga tababarka nagu siinayay qoriga BKM ka iyo AK laakiin nimanka jugta culus waxay wateen laba qori oo qoryaha gaagaabka la yiraahdo hoobiyaha oo laba qori ah oo fudud oo garabka ku qaadanayaan iyo qorigan jiibta loo yaqaan garabka laga riday intaas ay wateen marka miinana way wateen 3 xabo iyo 4 xabo heed ma aqaan miinana way wateen goortii meesha aan ku soo wada aruuray laakiin nimanka jugta culus nooma imaan ayaga meesha ma aysan imaan askartu baa meesha la isugu keenay oo adigu 10 bari oo kale meesha aan joognay 10 bari waxa lagu qaatay raashin meesha hilib baa lagu cunay 10 meesha lagu kala qaatay tababarra wax isfahansiina markii tababarkaas oo soo xirmay maalintii 12aad waana la soo kaxeeyay waxaana la keenay gas oo dacar la yiraahdo agteeda ceelka mariidlu ku yaal tuutaha waxa noo keenay nin gawaaril aan hadda magaciisa ma haayo yaa soo dejiyay tuuta cad oo barta cadeeska ah iyo barta kafeeyga isku dhex jira ah yaa la keenay habeen madow baa la soo dejiyay iyo qoryaha cusub BKM iyo AK iyo qoriga loo yaqaan sabanka hubkaas habeen baa la soo dejiyay markii aan hawlaheeni ay aan isugu nimid dacar la isugu yimid nimankii jigta culus baa ayagana diyaar garow ah oo qorigooda jiibta wato iyo sabankooda baalkii qorigan jiijo seedanaha oo hoobiyaha yarka ah labadaas qori iyo baalkaas iyo wateen iyo rasaastooda waa goortii aan meesha ka soo dhaqaaqnay maqrabadii markaa tukanaa la yiraahdaa ishay maqrabkii waa la isku daray waa la soo dhaqaaqay sidii loo soo socday waxa la yimid dhagax dheer oo ku beegan guri xiis cabiraan isku aadan dhagax dheer marka waxay saaran tahay jarka hoostiisa ku taala oo maaragtay xagga qarka hoostiisa ku taala meesha le guri xiisna waxa mara xagaafka mara saan u soconay markaan meesha tagnay 4 saaco kala ay ku beegantaan tagnay goortaan tagnay waana ka dhacnay waa seexanay waashiya lagu casho karsaday waa la hurday waagi baa noo bari quraan karsanay qadan karsanay markii qada la karsaday galabtii adigu abaara 10kii meelaha 11kii oo kala meelaha oo kala la yiraahdo waan dhaqaaqaynaa waan soo dhaqaaqnay adigu goor abaara 11kii oo kale ay tahay waxaan fariisanay meesha muaskarka u ahaan jirtay tababarihii hore madarshoon halkii markaan fariisanay meel yar oo marka jarka wadadii ma aan marin meel yar oo jarkaan marnay jarkii waan la wareegnay saan u soconay waxaan ka soo dhacnay wadadii madarshoon ka timid dhaxdooda meel fogaan ka soo dhacnay oo ay ku taala jiiq geedka jiiqda loo yaqaan ama fulay koonfurkan ay yiraahdaan meeshaas ka soo dhacnay goorta meesha nimid waa soo soconay mar saan u soconay adigu gabalku wuxuu noogu dhacay meel u dhaxeyso adigu dhagax dhaabuur iyo madarshoon inta u dhaxeyso oo kale noogu dhacay waa sii garaagarnay maqrabadii goortii la tukanayo waxaan ka dhaadhacnay marka dhagax dhaabuur jiirada ka baxdo oo mijiyaan ku dhacdo
dariiq meesha mara oo dariiq lagu aado isticmaalaan dadka reer baadiyaha oo dadka xijiistayaasha halkii baan ka dhacnay waan sii garaagarnay waxaan seexanay ceelka Mijigan hoos buu ku yaalaa dalcad buur yar baan seexan waxaa la yiri rag bay waardi u direen xaraas yiraahdaan xaraasadii waardi u direen idinka kale waxaan dhahay gudaha saax hala jiifto waa jiifanay goori 8 saacateen soo kiciyeen 8 saac la wada kacay ibn aad asmareys laga mooyay wax yar oo isku daweereys waa la dhaqaaqay adigu ceelkii Mijigan baan ku dhaadhacnay gudkii biyaha wixii ka dhaansanay biyo ka dhaansanay ninkii biyo watay uu watay hore loo jaqaafiyay sidii loo socday waxaan reer miyi meel degan baan marka waa noogu yar dilaacay reer miyiga aan ka wareeganaa leeyahay waa ka yar wareeganay meel yar jar baan marnay jarkii baan ka sii wareeganay annaga marka dalcadaas sii fuulayna marka reer miyiga way soo wada kaceen waagii baa buriyay arigii dad dalcad fuulay waa la arkaa Soomaa dalcadii baan fuulnay saan u soconay waxaan ku sii daadanay marka xabaal goror goorta xabaal goror ku sii daadanay waxaan nirahay waa quraac baa la karsado hala dhaca waadiga aan galaynaa hala nasto waa inuu caawo bas goortii meesha cunada lagu karsaday quraac baa la karsaday casha la karsaday cashadii waa iska duhurkii baa la kariyay cashada waa qadadii casho isku jira hal yiraahayee 12kii yaa la yiraahayee waa dhaqaaqaynaa nin walba diyaar soo maaha hal dhaqaaqo socodkii baan galnay aduu meel yar oo barxadaan fariisanay horta sheekadan ka kala nin baa laba nin noo timid nin madow nin caadi ah ninka madow wuxuu watay macawis shaar baa ugu jiray camaamad baa u saarneed marka camaamad uu madaxa ugu marneed kan cadna mar weyn oo go'an u maleeyay yaa madaxa u saarneed marka ninka cad ma uusan imaan marka ciidankaas meesha aan kuna nimanka markay noo imaanayaan meesha waxa madax ka ah Cabdirashiid waxa ku xiga Mursal waxa ku sii xiga Abubakar kaas waxa ka dambeeyo Sunni Abdulwaahid Mas'uud 12 Fanax Hasan Shaahi rag magacyadooda asaas liirada ka dambeeyo oo saraakiil ah ayaa la yiri hal diyaar garoowa baxnay barxadii baan fariisanay marka waa 12kii iyo 50 meelaha iyo 40 oo kala fariisanay goorta markaan meesha fariisanay nin reer baadiya marka meesha soo maray waxay dhahay marka war hal saac oo halaga dhaca bas meeshii baan karay dhulka waa la dhabacsaday dhulkii baa inbadaax way yiraahdaan hal inbadaaxay dhahan marka adu waa la dhabacsaday dhulkii baan ku dhabacsaday training baadiya inuu arkin ma kala cadeyn kara dinaga neef ugu ahay maqribkii baa galay waxaa la yiri waa jaqaafinayna qooladii markii jugta culuseed barta aan joogno dalcad yar aan soo fuuli doonay nooga beereen wadadii dhinaca uga beereen oo xag meel kale ay mareen oo jid kale annaguna dariiq kale aan ku dhacay halkii baan ku soconay adigu gooray adigu qiyaas 4 saac 5 saac meelaha oo kala habeenimo iyo laamiga ku beegan marka cabirkiisi waa meel ay buunta ku taalo meel wareegan ay deegaanka ku yaalo marka waxaan dhimeedyada marka woof loo maraayo rasaarin iyo gawaari kale oo adigu baawartaan maartay fuusiyaasha koonfur laga yiraahdi waxyaabahaas aan maro goortaan ku dhawaan marka hal wada freestyle inta gawaarida naga gudbiyso gawaaridii baa wayna dhaafeen badankooda wayna dhaafeen hal baa soo socday u kaadaya liir kantuna dhaafay kii baana dhaafay hal bobsi laga dhaxbaxaa liir goorti saas wala fadhiyo loo kacay anuu qoriga sawki baa waday waa iska daba dhacay marka jilka wax iga gaaray ma dhaqaaqi waa saadani adkay dhaqaaq orod nafas gali waa dhaqaaqay horaan u socday cabaar markaan ka fogaanay laamiga adigu 15 daqiiqo aan cararnay iyo dhan hal fariis meel wax bakaniin ay siiyeen wada xabkaniin aan laqay hadana hel waa la joogsanaya aan socon waa socon saan u soconay waxaan tagnay meeshii fuustiyo biyaha yaaleen ee ma aragtay yaa la tagay waa adigu 6 saac meelaha oo kale marka cabir adigu qiyaas ahaan saacada markii la aruuriyay markii meesha la tagay biyaha la dhaansaday xariiri togayaan galaynaa marka meesha xagaafka ku yaalo xagaafka meesha ku baabaa hore ma dhaaf meeshii biyaha ka dhaansanay togiga la galay waadigii baa laga yara dhacay waagii baa bariyay quraac baan karsanay qada meesha ku karsanay goortaan qadada karsanay haddana waxa la yiraahday 12 saac adoo 10 saac oo kala aan dhaqaaqno ayala dhaqaaqo burihii baa la fuulay waa la socday meel aan saas u dheerana maartay waadiga aan ka dheerana gobolka noogu dhacay dad 70 mees daba socdo meel ma gaarayaan waa marbak dalaal si fuulay culays la wado
gobolka meel gaaban oo noogu dhacay maqribkii iyo cishii baa la yiri hal isku daro cishii maqribkii isku darnay la socay marka saan u soconay meel baan marnay reer baadiye degan ari u joogo goorta meeshaan marnay marka reer miigana ma aysan arkin meel baan fariisanay shaay baan ku karsanay waa adugu baaro meelaha samarkaas ka qiyaaso 4 saac meelaha oo kala xilli larka dabees soo dhacday meeshii baa shaay ku cabnay waa dhaqaaqnay waxaan ku beeganay marka ceel guweed salaad subax markii la aadaankii ugu horeeyay adigu 10 saac meelahaas bar dalcad yar markii ceel guweed waa waadi waa god dalcad aan soo fulay marka rag baan ka maqlay meeshaan u socon waa rag wadanka yaqaan oo cali baraki yimid oo caashaas joogay dhaxda dhan caadi u kala yaqaan waxaan ugu dhac jiray maxaa la yiraahdaa ceel guweed miyaha halkaan u soconaa miyaha waa dhir baa ku taala marka geedkan dhamastel halkaan looga yaqaan yaa ku yaala godkii baan ku dhaadhacnay waadigii baan galnay ceel baa ku yaala ceelkii baan maaragtay cunada ku karsanay horta cunadii meesha ku karsanay yaa la yiraahdaa waxaan noo qabtay muxaadaro marka maalinta ugu horeysay horta waxaa weeye ninka ciidanka haystay cabdirashiid magaciisa la oranayo guud waxaa ku xiga ninka mursal la yiraahdo waa soo baxnay markaan nimid geedka buuraha gadaashooda ku yaala oo qashinka meeshiisa ah goortaan nimid waxaa amarku bixiyay cabdirashiid wuxuu u yeeray ninka ku xiga mursal waxaa ku xiga abubakar wuxuu u yeeray jaamac ninka la leeyahay xasan shaahi uu u yeeray iyo ninka la leeyahay magaciisa cabdiwaaxid raggi way wada shireen qaarna waxaa lagu jehiyay saldhigga jeelka inay weeraraan labada qaybood kalena waxaa lagu kala qaybiyay qaybna jidgooyo laamiga geeskaas lagu kala qaybiyay marka intaas u kala qaybiyeen iyo go'aanka kala qaateen annaga marka aan ahaanteed waxaan la jiray mursal waxaa looga tagay qaybta dambe oo meesha buuraha oo guryaha gadaasha ku yaala geed hoosiisa ah meeshaan iska wada fariisan meeshaan ku harnay goortii budgetkii marka la kala qaybiyay qaybtii ugu horeysay jeelka oo soo weeraraysa way soo dhaqaaqeen nimanka kale oo jidgooyinka sameyn lahaana ayagana waxaa weeye labada gees u kala baxeen jidgooyinkooda ay kala aadeen adigu abaaro 4 saac 20 meelahaas oo kale ahayd markii socodka kala dhaqaaqo bilaabanay way soo baxeen adigu muddo 30 daqiiqo waxaan ku qiyaasay oo kale ah ay naga maqnaayeen adigu oo masaafo ahaan ay naga maqnaayeen waxyaal markay ahaatay 3 daqiiqo adigu iyo 4 saac iyo 50 goor ay tahay meel maxabad ku bilaabatay marka 5 saac meelahaas oo kale ay xabad ku dhacday xagga jeelka ka qaraxday meesha xabada ka bilaabatay wax bay yeeryeereen meelo ay wateen iyo jiib tii garabka laga riday ay wateen waxa meesha ka yeeryeeray goortay wixii ka yeeryeereen haddana wax xabad ka dhacday dhankaas kale magaalada anoo geeskeeda ma kala aqaanay dhinacaas xabad ka bilaabatay haddana waa jidgooyadii qaybta kale oo watay waa jaamac qaybtaas xabad ka bilaabatay marka meesha xabad ka bilaabatay haddana dhinacaan kale oo laamiga anoo ma kala aqaanay haddana wax xabad ka bilaabatay dhinacii uu soo jiray waa xasan shaah ciidamadu watay ciidamadu meesha markay kala dhaqaaqeen qofka wajigiisa taqaan waa aqoonsanay Soomaaliya meesha uu aaday kuwa dhinacaas ay aadeen kuwa jeelka soo aadeen marka ninka hogaaminaya wuxuu ahaa Cabdiwaaxid baa la yiraahdaa Cabdiwaaxid awte waxaa la jiray nin Muscab 12 yiraahdaan ay qaraabo yihiin iyo nin kale oo la yiraahdo Fanax ragaas la jiray marka labadaas baarto iyo baartaan jeelka weerartay saddexaas baartay kala ahaayeen anagoo 720 qof oo kale aan waxaan nooga tagay mursal nala jiro fariisinta dambe qaybta dambe aan nooga tagay gadaasheena waa iska duur waxa weeye wax saas oo guri meel wax ku meeshan oo iska banaan wuxuu ahaa adi buura dhinac wax naga soo qabanaysa fadhigan markaan wajigan wuxuu ku soo jeeday xagga galbeedka meesha cadaad u dhacdo oo kale iska qiyaas habeenay ahayd yaan ku cabiray marka buurtu waxay naga qabanaysa dhankeena midgeed oo kale naga qabanaysa meesha geedkan saa u fadhinay xabadii wixii baa dagaalkii baa dhacay labada meelood xabad dagaalaha kala socdeen rag jeelka ka soo baxaa oo marka horeen socdaan noo yimid markay mursal soo gaareen mursal markuu wuxuu yiraahday rag idinkeeda kamid ah ninkan jiiska ha kaxeeya sii socdo marka aan dhul aqoontiisa ma leen rag ay naga marka waxay dhahan gaacaan aadayna wajigeena gaaco ayaan ku wajaheena marka raggii aday naga mid ahaa raggan ayaga soconaa iska day rag dambe soo socday raggaas ayaa la sugayay marka goortii raggan dambe ay soo baxeen iyo ay noo imaadeen gabdhii iyo raggii hore way baxeen gaari yar oo meesha yaalo market ahaa yaa qaarkood lagu qaaday gabdhii u badnaankii intii soo hartayna gaarigii si daba lagu weensaan qiyaas adigu waa dadkii way baxeen kuwa dambeena soo gaaray anigu iyo 5 wiil kale laba naga baxsatay oo ku jiraan yaa marka meeshii ka dhaqaaqnay ama marka lugta jilibka wax iga gaaro ka xanuun ka socon la goorta marka meesha ka sii dhaqaaqnay wajigeena marka anaga xaggan ku wajahnay adoo baar 6 saac oo kale ka dhaqaaqnay marka anaga
waxa iska sii soconaysa aan hadaafeynay ninkii nala jiro marka magaciisa la yiraahdo Mucaawiye yaa ciidanka marka horsocod u ahaa oo dhulka kala yaqaan Mucaawiyaha iyo Macal Xasanka labadaas nin yaan hor socdeen shaqalo faan u leeyahay u dhaadhicin waadigii waxaan ku tagnay sheegeen gaaco yaan ku dhacnay tugir meesha asagalna waa daalaneen ilaa 6 saacadoodnimo ilaa intuu waa ka bariya qofku uu socdo uu horana 3 maalmood ka badan uu socday uu daala Soomaa waa soo soconay waxaan ku dhacnay godkii markaan godkii galnay waa yar neebsanay ayaga marka waxay sameeyeen dalcad meesha naga yeesray fuulaan telefoon baan ku hadlaynaa dheen aduu inay meel ku dhunteen iyo meel kala galeen ma aqaano wax yar kadib ciidamada dawladda soo gaaray markaan meesha noogu yimid sidii baa gacanta noogu soo dhigay labana aduu meesha ku dhinteen laba nin anagoo gacanta noogu soo dhigay waana la soo kaxay hatta ninka labaad aan war uma haynin ninku dadku ugu horeeyay soo dhiibaan anoo markii xabada dhacday soo socota ayada xabada socota ciidamada gacanta aan taagay warmay wana waa soo dhiibaan way soo qabteen hay'adda maxaa ahayd warmankaas aan ahaa raggaas ma adeedaha wax dhibaato ah liima geysan leemana garaaceen waxa oo jirdila dhibaan iimaysa geysan ciidamada si wanaagsan baa la dhaqmay biyo la isiiyay cunna la isiiyay si wanaagsan baa jeelka lagu keenay marka waxa way wanaaga oo la sameeyay xabsiga dhaxal ay soo qaadeen gawaar bay u soo qaadeen xabsiga dhaxal la keenay goorta xabsiga dhaxal la keenay habeen xabsiga dhaxal iska bariyay markii dambena xeradaan hadaan joogaa la soo bedelay meesha la keenay wax dhibaato barbalaan ama rafaad ama garaafo la geystana ma arag cid ii heen jibtana ma arag cid dhibaato ii geystana ma lahan marka qofka bini'aadamkana waa qaldamaa sax waa si wanaagsan waa la dhaqmay arrimaha marka ay barnaamijka nimankaas ka damacsanaayeen jeelkaas inay waxa ahayd ay kala baxan ragga meesha ku jiray iyo dumarka wax kale u qaban aanu ma aqaan waa ilaa qofka nimankaas saraakiishoodu waa dad aan waxba ciidanka inay sirtooda ogaadaan aan ogolaan weey marka inay waxay aad u jecel yihiin kooda ugu sareeyo marka amiir majmuuca marka laga bilaabo ilaa amiir sareeyahooda ilaa amiirka guud markaas haysto waxay ku hadlaan shuxshuux waxa la yiraahdo ee dhig wax isku sheeg ah ay ku hadlaan ciidamada wixii amiir majmuuca ka soo hoos jiro oo ka hooseeyo wax sir ay ogaan karaan malahan waa laga yaabaa taawiil inay sameeyaan oo ma aragtay ay ka hadlaan ay dhahan meeshaas lagu socdaa oo kale iyo barnaamijyadaasi inay ka hadlaan laga yaabaa marka qaar ay meesha ay noqon weyso meel kale laga soo baxo marka waa dad aad u dhib badan oo barbaleenkooda dadka muslimiinta Soomaalida ah dadka dhaxdooda ku jira ka dhaadhiciyay fikrado aad u qaldan maskaxda qof bini'aadamkana waa